koonfurta bari ee qaaradda Asia. dalkan xeebta waqooyi ka saaran jasiiradda Borneo, docda koonfureedna ka saaran China Sea, uuna ku hareeraysan yahay gobolweynaha Malaysia ee la yiraahdo Sarawak. waa dal jasiiradeedka hodanka ah ee Brunei, ka oo ay ka taliso boqortooyo da'weyne. waxaa dadkiisa haatan lagu qiyaasaa tiro aan gaarin 500,000 oo qof. caasimadda dalkuna waa Bandar Seri Begawan, kuna soo dhawow 8 xaqiiqo ee aynu Brunei kaaga warinayno. Brunei waa mid ka mid ah dalalka nidaam boqortooyeedku ku dambeeyo. tirada yar ee dalal boqortooyeedyada dunideena ayay ka mid tahay jasiiraddan shidaalka hodanka ku ah, taasoo uu hoggaankeeda hayo suldaanka Brunei Hassan al-Bolkiah, kaasoo guud ahaan talada jasiiraddan gacanta ku haya, isla markaana talinayay ilaa sanadkii 1967. hodontinimada Brunei. sidaan horay u niri, dalkani waa mid ka mid ah wadamada ka hodmay kheyraadka shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah, ka oo halka ugu sarreeyay uga jira tirarka dhaqaale ee dakhliga gudaha dalkan. waxaana tani jasiiraddan ka dhigtay mid ka mid ah dalalka ugu hodansan dunideena marka laga hadlayo dhinaca dhaqaale shakhsiyadeedka waddanka. boqortooyada islaamiga ah ee Malayga. oo kaasi waa magaca loogu yeero dalkan, ka oo afkooda lagu yiraahdo Malayu Islam Baraja, magaca oo koobaya dhaqanka dadka ee Malayga, nidaam dawladeedka oo monarchy ah, iyo diinta islaamka oo ah tan ay haystaan bulshada ku nool dal jasiiradeedkan. hirgelinta ciqaabta sharciga ah ee shareecadu jaangoysay. boqortooyada Brunei waxay sanadkii 2014 dhaqan gelisay ku dhaqanka ciqaabta sharciga ah ee shareecadu jaangoysay ee lagu ciqaabo dadka ku dhaca fal dambiyeedyada galmada aan xalaasha ahayn iyo xatooyada, taasoo dalkan ka dhigtay kii ugu horreeyay ee ku yaala bariga Asia ee dhaqan geliya ciqaab sharciyeedyadan. mid kale ogow, dadka isku jinsiga ah ee isu hawooda xukunkooda Brunei waa dil toogasho. mid ka mid ah boqortooyooyinka ugu faca weyn dunideena. oo boqortooyada Brunei waxay safka hore uga jirtaa kuwa weli talinaya ee ugu cimriga dheer dunideena, waxaana asaaskeedu ka soo bilowdaa in ku dhow 600 sano ka hor sida la wariyay. cashuur ma bixiyaan muwaadiniinta Brunei. sidaan horay u niri, dalkani waxa uu xagga sare uga jiraa liiska dalalka dunideena ugu dhaqaalaha fiican, taa oo jasiiraddan yari uga mahadcelinayso saliidda iyo gaaska dabiiciga ah. waxaana tani muwaadiniinta Brunei u sahashay inaysan wax cashuura dawladda siin. luuqadda waddanka. luuqadda rasmiga ah ee dalkani waa afka Malayga, kaasoo ku dhisan dhaqanka iyo taariikhda dalkan. dadka waddankani waxa ay leeyihiin munaasabado ay si khaas ah oo weyn ugu dabaaldegaan, sida Ciidul Fitriga iyo dhalashada suldaanka waddanka Hassan al-Bolkiah. guriga suldaanka waddanka ee buugga mucjisooyinka adduunka ku jira. oo dhismahan lagu magacaabo Istana Nur al-Iman, guriga Suldaan Hassan al-Bolkiah, oo saaran xeebta caasimadda waddanka ee Bandar Seri Begawan. waxaa dhulka uu ku fadhiyo lagu sheegay 200,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran, taa oo sababtay in dhismahani noqdo guri deegaanka ugu ballaaran dunideena, taasoo uu ku galay diiwaanka Guinness World Records. waxaa dhismuhu ka kooban yahay 1788 qol, 257 suuli, masaajid weyn, garaaj ama geerash qaada 110 gaari, iyo 5 swimming pools.